waxaan maanta ka qayb galnay shirka golaha wasiirada waxaanan soo bandhignay arrimaha ku saabsan howlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda arrimaha xuduudaha dhulka cirka iyo badda iyo sidoo kale ajaanibta iyo qaxootiga dalka soo gala ama hadda jooga waxaan kale warbixin ka siinay hababka socdaalka dalka iyo hababka lagu bixiyo dalku galka iyo dalku jooga iyo sidoo kale waxaan warbixin ka siinay sharciyada la xiriira howlaha hay'adda wada shaqeynta aan la leenahay hay'adaha dawladda iyo kuwa kale caalamiga ah iyo sidoo kale dadaalada socda ee lagu horumarinayo habka lagu bixiyo baasaboorka Soomaaliya iyo sidoo kale arrimo la xiriira amniga xuduudaha oo soo ka hadalnay oo ku saabsanaa in iskaashi laga sameeyo arrimaha xuduudaha si amnigooda wax looga qabto waxaan kaloo soo bandhignay dalalka burburay oo horay Soomaaliya saaxiibo ula ahaa oo iyaguna maanta dalalkooda ay soo burbureen oo iyagoo qaxooti ah jooga dalka Soomaaliya iyo sida loola dhaqmi karo iyadoo horeyna aan u soo bandhignay arintaas inay u baahan tahay in il gaar lagu fiiriyo waxaan kaloo ka hadalnay dib u eegista ku socota sharciyada socdaalka xeerka baasaboorka kan hay'adda iyo sidoo kale sharciga kale oo qayb aan ka nahay ee jinsiyadda oo iyagana dhawaan dhammaan doona hadii la yiraahdo la geyn doono golaha wasiirada waxaan kaloo warbixin ka siinay xaaladaha cusub ee soo kordhay la xiriira xuduudaha dalka ee ah saameynta dalalka qaar dariska aan lanahay qallaasa ka dhacay oo keenay in dad badan oo ajaanib ah xuduudaha ka soo gudbaan taas oo iyaduna kulay goluhu ka dooday aan rajeynayno inay siyaasad laga soo saari doono arrimahaas ayuu ku saabsanaa hawshii maanta ama bandhigii aan ka sameynay shirka golaha wasiirada